waxaa imaan doonta maalintaas oo aad moodi doonto inay wax waliba dhammaadeen, laakiin daqiiqada u dambeysa Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wanaajin doona arrimahaaga oo idin. maxaa yeelay si fudud isagu waa Allah. haddii ay qalbigaaga ku kulmaan wixii quusasho iyo niyad-jab ahaa oo adduunka yaallo idin, dhammaan albaabada rajaduna kaa xirmaan, waa adduunka oo dhan uu ciriiri kugu noqdo, xasuuso inuu yahay dareen waqti ku jaango-an. dareenkaasi si kastoo murugta u dheeraato, waxaa qasaba inay maalin un suuli doonto ay kaa tegi doonto. imise xanuuno iyo mushkiladaha ayaa ina soo maray oo haddana tegay sidii inaysan ina soo marin oo kale, oo haddana ay xanuunadaasi noqdeen xawso tegay oo laga sheekeeyo. imise xanuuno iyo murugo aan u malaynayna inaysan dusheena ka suuli doonin weligooda, balse ducooyinkeena ayay nooga tageen. ma jiraan waxaanan isbedelayn, culays kastaana waxaa ka dambeyn doona fudeed. waxaana daliilu aayadda qur-aanka ina oranaysa inna macalin cusri yusra, culayska gadaashiisa waxaa ahaaday fudeed. shay kasta waad ka baqato waa laga cararaa, laakiin Allah subxaanahu wa tacaala xaggiisa ayaa loo cararaa. maxaa yeelay xaggiisa ayay ahaatay farxaddu, xaggiisa ayay ahaatay badbaadadu, xaggiisa ayay ahaatay naxariistu. haddaad ka cabsato Allah xaggiisa ayaad u carartay, waa sidaa micnuhu. nabadgelyo iyo naxariis xagga Alle ka ahaatay dusheena ha ahaato walaalayaal. hadday tahay markii koowaad aad soo booqato channelka Subeer Official, fadlan ha ilaawin walaal inaad nagu taageerto, subscribe, like, share, comment. aad baad u mahadsantahay.